halkan waxaan kaga hadlaya maanta nin ragana loo sheegi maayo nacasna loo sheegi maayo nin ragana wuu ogyahay xalay aniga mobilkaygaas ayla hadlay ilaahay yaa buu ii keenay marun buu iska yidhi everland waa everland maxay ahayd ilaa baalku ever dollar markii lacagtu dhamaato ayuu mboolan jiray hadda aniga maaha waa mobilkaa yidhi everland maxaa meesha ku jira baan idhi war xaqiisadan goor dambana waa helay maanta waxaan ka hadlayaa insha allahu arrintan ka socota eelaf weyn fadhigaab darara weyne eryadaas waxaan ka hadlayaa arrintaa weeye arrintaa waxa weeyaan siday u socoto waxaan ka baqayaa in ciqaabi lagu soo dego ilaahay cirkayna kaga keeno xajaar waaweyn oo dushayna kaga daadata sababtoo ah ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay wuxuu ilaahay sheegay fidmada way hurudaa waa xadiiskaas midhaa fidmadu way hurudaa ninkii toosiyana nacdalaa ku dhacdo waxaa kaloo ilaahay inooga digay fidma ninkii sameeyey aan ku okaan doonin ka feejigaada buu ilaahay meeshaa dulmi weyn baa ka dhacay dulmigaa reer baa lagu sameeyey cid kale laguma samayn dulmigaa cidda lagu sameeyey waa hal reer cidda samaynaysaana waa reero badan weliba dawlad kaashanaya anigu markii hore waxaan ku hadlayaa oo aan halkaa ilaawey afka beesha garxajisoo dhan hadday yihiin nimanka la yidhaahdo gobdoon dhamale ugu galbeedeeya iyo hadday yihiin yoonis muuse oo ugu baryeeya luqadoodii aniga ayaa ku hadlaya maanta kelmadda aan leeyahay iskaga mid baan unay waxaa og tihiin in ilaa 5 jeer nimankaa la yidhaahdo sacad yoonis ee reerka halkaa degan habar jeclo oo iskarabsanaysa ay ku soo duuleen weliba muuse abubakar ku duuleen oo ay dhulkoodii ku weerareen oo hantidoodii ku weerareen oo ay garab ka helayeen dawladihii jiray oo eedda la saaray mar walba sacad yoonis haddana la yidhaahdo magbixiya weligay maan arag taariikhda mana waraysina kuma maqal indhana kuma arag dagaal caamul iskaga hor yimaado ilaa ma kala qaato wallahi ana weligay maqal intaas Soomaaliya istilis waa meesha ka soo bartay ama aan ka maqlay weey mar walbana marka magtaa lagu xukumo ee hantidii baxday lagu xukumo ee ha yiraahdaan ayaa haddana markay lacagta horraantiisa qaataan weer ku soo qaadayeen xigaalkood baan wayna waan daawarin laasin ma inoo hay fariidnimo naga ma ahayn laasin naga hay inta baa xadii baa la geliyay wallahi la mariyay madanimaku islaamba ma ahaniyo rugda saas leeyahay ma aha muslimiin haddii muslimiin yihiin sababta dagaalka waxay bilaabeen shahr al-hurum xilligii ay bilaabeen shahr al-hurum bilaa liyaado ee saddexda ee isku xiriirsan mid kamid ah waxay ahayd hadday islaam diin haystay yihiin may bilaabeen bashar al-hurum gaal islaam oo ka mamnuuc in la dagaalamaba waxay galeen intaas oo dhaarood ayay mareen oo ay jabiyeen mar walba rag dawlad sheeganaya dad guurta sheeganaya intay socdaan tigayay oo odhanayay labada beelood walaala ahi dagaalka joojiyaan war horta laba qof oo isdilay walaala maaha qof maalkaaga dhacay oo naftaadii dilay walaala kula maaha ehla kula maaha laakiin ehla waxa kuwa walaal kuwa qof naftaada iyo maalkaaga badbaadinaya cadaalad darrada dhacday ee cuqubada halkaa ka dhacday ee reerka qura la isugu tegey ee dawladda shacbi la isu kaashaday ee aan anaguna nacasnimada iyada daawanaynay ee halkaa ka arkaynay marka hore dulmiga ka dhalanaya ilaahu naga nabadgeli baan leeyahay annaga kollayba wuu dhacayaa ilaahay naga nabadgeliyo waxa kaloo aan leeyahay maanta warku wuu soo urursan yahay 8 qalad ee dhacay ee reerka qura lagu sameeyey ee dawladdu dabada ka riixaysay ee reerku sameeyey ee midna waxba laga qaban waayey haddii maanta aanan 8 qalad iyo kaa maanta taagan labadaba dawladdu imika jirta aanay gelin reerkaas oo boon ku qaadin nimankaa geystay oo rag iyo xoolaba ka xidhin oo laynin wallaahi inaan nabad la helayaa jirin oo hargeysana lagu fadhiyin burcana lagu fadhiyin eergaabana lagu fadhiyin eel wafoodinta colaad ahaaday iyo fadhigaabo reerka la weeraro maalba anagoo arkayn halkana nabad lagu joogayn meelna lagu joogay ha ku dawaqina taa afka garxajis baan ku haday wallaahi waa iskeensinaysaan waana diyaar garoobaysaan iyo idinku xumaan dagaalku aad siyaashay
hadda ilaahay gara weyda annagaa ilahay idinku bari wallahi inaanu ilahay idin bari maxamed kaahina waxba yuu meeraysanin maxamed kaahin halkan yuu ku meeraysan ya annagana waxa weeye waxba yuu meeraysan war ilaahay intii qofka bini'aadanka ilaahay lagaga samri karayo lagaga baqi karayo idinkaga baqanay waa hadhi weydeen bacad baan idin siinay waa hadhi weydeen waa laydinka xishooday waa hadhi weydeen somalilan oo dhan baanu tixgelinay ummadnimada iyo dadnimada iyo walaalnimada waa la socon weyday taas marda taas waa dawo dhali weydey war abtayaal iskeen siiya abtayaal iskeen siiya annaga shaar dawladaha noo soo qaadanina kolba waad ogtiin dagaal habar jecla gashay waan goldheer ahayn oo keligood ahaayeen wallahi inaan weliga dhicin arha sheegaan iska hadlayaan walaacayna baanu ka dhicin imankana dawlad baa kugu laman tii kabsaale oo kale ka dhacday ciidamadii dawladda iyo reer wada socda ayaa elef wey dadkii weeraray maatadii laayey raggii meesha joogay ee jabhadda ahaa ee hadhaaga ha laayey saraakiishii laayey waxaas wax la eegan kara iyo waxaanu aqbali karo midna ma aha waxaan u malaynayaa waxaan isaaqa la odhan jiray inaanu annaga mooye isaaq kalama jirin annagu nagamay dhacdeen oo nagama suuro gasheen laba reer oo waalaha iyaga oo reeraha kale ah oo sidaas ugu kibrayo oo nisaa u kibrayo inaanu eegano wallahi inaan dhacdeen waxbaan ku qaban lahay haddaan nahay reerkii xasid aada isaaqow intiina kale maata ahayd anaan raggiiso isaaq un baanu hayn annagaa isaaq hayso waa xaalba qaata dad dee isaaq kalama ma jireen waxaan ku soo gebagabeynayaa nabadda uu garanayaan maanta ninkii raggii dhinacaasna loo sheegi maayo nabaddu waxay ku xidhmaysaa ama heshiis ninkii doonayaa ku xidhi karaa waa in la galo biciide iyo maxmed nimanka la yidhaahdo muuse abakor wixii alle waxay faldembiyeed geysteen lagula xisaabtamo lagu qaado gacan lagu saaro taasunbaa heshiis ku dhici karaa nabadgelya la kulmin kartaa annagana waxna lagu weydiin karaa maanta sacdi warismaa arrintaa khitaar buu male khitaarna u yeelan maayo waa arrin ka godaga xaji hadalku waa cadi waxaan idiin sheegayaa annagu dadka waxa weeye waa u samiraa oo u dulqaadanaa laakiin maanta uu naga dhammaaday inaad dulqaadka ilaahay baan idinkaga baqan oo nagaga baqan weyday qalbigaanu idinka duunay xabadda waa nagu duwi weyday madaxaanu kaaga duunay waa nagu duwi weyday ya war haddana madax iyo qalbiga kaaga dhufananaa u diyaargarooba intaa waxaan ku darayaa oo waan ku soo gebagabaynayaa lahadalku khatim buu leeyahay ya republican waxaa ilaahay leeyahay everland bal arrintaan u fiirsada waa mucjisa qolada suufiyaasha cabiri doonta awal ever dollar bay oran jiray moogta everland war baaka miyaan idinkula tukanaa reer nimankiina baasha cunayow miyaan idinkula tukanaa aas kaa dhigtay iil kaa dhigtay oo qabrigaa dhigtay laantii ugu aragnaaye oo xitaa 18 milyan bedesheen wadinkaa qabriga dhigay adeerayaal iyo ilma adeerayaal waxba midhaa ilmaariya adeerada sunan yihiin dadka ilaahay isu keenaynay waxay yeelaysaan war qabrigaa dhigtayna annagaa idinkula tukanaa jinaasada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu